iyadoo xilliga lagu jiro ay tahay xiroobaadkii guga isla markaasna deegaano badan oo ka tirsan gobolka Sool oo maanshay raxmaadkii Rabbi xarun goboleedka Sool ee laascaanood toddobaadyadii ugu dambeeyay ku soo noqonayay roobab mahigaan ayaa waxa jirta wadooyinka magaalada laascaanood iyo goobo badan ay dadku ku kulmaan inay buux dhaafiyeen dhiiqooyin iyo raadku ka tagay roobku xarunta dawladda hoose ee degmada laascaanood wadooyinka laga galo ayaa iyagu waxay yihiin waqti xaadirkan kuwa ay xidheen qashin uu ka tagay roobku iyadoo wadooyinka qaarna ay buux dhaafiyeen biyaha oo markaas isu bedelay dhiiqo kuwaas oo ay ka dhalan karaan xanuunada kala gedisan ay ugu daran tahay xanuunka shuban biyoodku waxaad moodaa markaa tagto xarunta dawladda hoose ee degmada laascaanood afafkeeda hore goobo qashin gura oo markaasi sanado badan qashinka laga qaadin haddaba dadweynaha ku dhaqan magaalada laascaanood oo la hadlayay TV-ga caalamiga SBS ayaa cabasho baan ka muujiyay nadaafad darrada roobkan ay kalifeen wax qabad la'aanta dawladda hoose ee degmada laascaanood waa kuwan qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada laascaanood oo uga warbixiyay TV-ga caalamiga SBS dareenkooda ku aadan xaaladani بسم الله الرحمن الرحيم أنا محمد صالح كان من بشوين تكون الجبل كسول خاصة قال لي يرى تجاسيدا وحنو كعوائنا قبل الله أنت دولة هوس وحلو كتير حل الروضات وادركت ودوين كهرة دعوة فرداء قشر كبايا لا وحنو مقالة أيامها كان إن أي تشيلك قيلنا يعني هالليان فإليهين شقوي كيجا لسوفر قلي هذا شعب كان هاي وحن سوق بينا وحقب الله إن شفته دولة هوسة هدي أنك هذلو دولة هوسة دورت ولا أركتانو وحقبت متشرو سيدا بنا والله مقالدو مركب معمول شرو معمول كتير أما هو يكون العلا أما هو يكون العلا ما أنت دولة هوسة ولا جو والله dawladii hoose ka horeysayna waa lagu walaacayo wax qabadkeedii iyo amaanteedii iyo waxa ku si wax kala hagaajin jirtay iyo kaale arag bay xitaa cashuur qaadkeeda yaray laakiin tan maanta waa laga walaacay dadku waxay leeyihiin hana laga daayo ma rabno dadkan yaa nagu haya marka waxaan leenahay isbedel baa loo baahan yahay daraysaa marba marka shakada ay keenaysaa waa hadda la yiri kuwii dhashay baa la cashuuraya meydkii baa la katiinadanaya la oranaya uu baxsanaya cashuurtii xalaasha laga qaadaya waxa suuragal ma aha hal la joojiyo hana laga daayo xukuumadda kiraayada hagbada hana laga daayo lagu jiro war hagbada miyaan buuxsanayn miyaan guriyuhu dhismayn miyaan waxaan idin dhamaanayn miyaan akoomadu buuxsanayn hana laga daayo cashuurtana meydkii iyo dhiciska ka qaadasan ilma noqday xitaa cashuur laga qaado waxa weeye dawladda hoose waxa u dhisan tahay waxa bad moodaa meel ummadda dhiigeeda lagu cabo oo dhigmiiratada shacabka ay iskugu tageen sababtoo ay tahay waxa weeye deegaankan ay mas'uulka ka tahay oo dawladda hoose ay ka tahay waxa weeye shilinka waa ka dhamays haday cashuur tahay haday wax kala tahay waxa weeye laakiin wax allaale waxay ku qabato ma jirto hadda baloorka aad hantida u leedahay hadaad damacdo inaad jeexato $100 ama $250 dhig baa lagu oranayaa walaadan u jeexayn hadii kale albaabada ganjeelada kala baxa baabuurta jidadka ku qabsadaan war cashuur ku baaqata dawladda hoose oo gobolka Sool ma jirto wax allaala wax lagu qabto ma jirto deegaanka waad aragtaa sida dacdo u jifto ummadii biyihii baa isku wada xidhay guriyihii biyihii baa wada gooyay ya xilli roobaad baa lagu jibaa uskagii iyo qashinkii iyo waxa weeye ummadii xanuun baa ku wada dhacay waa wada buux yaguna baabuur cad iyo guriyo dabaqyaaba la dhistay anagu hadaan nahay ardaydii magaalada indhihiisa kacay waxaanu cabasho ka muujinaynaa dawladda hoose oo shaqadeeda dayacday sababtoo ah meesha soo martay biyaha fadhiya bacda meel kasta haysata bulaacad baa meel kasta ka soo baxday aan waxba laga qabanay waxaan leenahay hadda dawladtiin wadanka hal la hagaajiyo bulaacadaha la iska buuxiyo iyo meelahan biyuhu ay fariisanayaano caruurtii reesoon ku wada dhacay waxa meesha ka dhalanaya biyuhu fariistaan xanuuno xun baa ka dhalanaya caruurtii dhakhtarka wada jiiftaa shuban baa ku dhacay way xumaatay nimankii horeysan jiray baa waxaan ku wacnaa kuwan haysta iminku waa kuwa dhuuni qaataa haguday ugu wada jiraan dooni mayno
nimankii hore dawladda asaga la soo celiyo dacaha magaalada way rasaa baan ku magaalada soo loorin jiray ceeriyaan baa haysata way rasaa niyo baan ku yiri dadna qof walba waxa laga qaadaa cashuur haday gaadiid tahay haday meher tahay haday guri tahayba cashuurta laga la baxaya cashuurta laga qaadaya haddii laga qaadan albaabada laga furanaya gaariga furiisa laga qaadaya adna mar walba lacag baa laga qaaday waxa la wax lagu qabanayana ma jirto meeshana waa arta xanuunna ka wasaqdan wax ka dhalanaya xanuuno roobka biyo meel walba wasaq dhigeen bacteria ka dhalanaysa xanuuno badan baa ka dhalanaya nadaafadii kaliya qashin kaliya ay naga anfacin inay naga qaadaan marka waxaan leenahay maamulkan Soomaaliland ee ka shaqeeya meeshan inuu ummadan sidan wax ugu dhaamo cashuurta waxaan ka caawinaa magaalada dawladda hoose kama jirto waxa weeye magaalada qafil baa saaray qafilkaana waa dawladda hoose dhalinyarada oo wareystanaya dadkii magaalada artaan wax weeyaan roobkii daay way ku oodmeen dadku ku oodmay waxa kale ku oodmay qashinkii baa ku oodmay oo qof kasta qashinkii hor yaallay wuxuu soo raaciyay dadkii waxay halis u tahay in ay caafimaad darro ka dhacdo in ay daacun ka bilaabmo ay halis u tahay taasi waa xagga caafimaadka indhihiina idin macalino waad arki doontaa dawladda sax waxay u leedahay wadooyinka inay hagaajiso oo magaalada naafida iyo bulshada inkastoo haatan dawladda hoose ee degmada Laascaanood ay ku mashquulsan yihiin khilaaf waana soo kala dhaxgalay wasaaradda hawlaha guud iyo gaadiidka ayaa haddana dawladda hoose ee degmada Laascaanood waxay aad uga gaabisay wax ka qabashada armihii haatan loo igmaday ugu horeyso nadaafadda guud ee magaalada Laascaanood xarunta gobolka Sool ee Laascaanood haatan markaad marayso wadooyinka qaar waxaad moodaa goobo xilli hore haatan laga hayaamay oo ay buux dhaafiyeen dhiiqooyin iyo qashin kala gedisan ay roobku ka tageen maxamed axmed jaamac maxamed bidaanshe telefishinka caalamiga SBS Laascaanood